kulan wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinkii ugu dambeeyay dunida dacaladeeda aad ka daawataan maalin walba waran media marka laga reebo maalinimada jimcada dabcan waa kooda luuliyo sanada 2018 qodobada aan ku soo qaadan doonaa daawadayaal waxaa ka mid noqonaya ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxweynaha Eritrea Asis Afwerki oo yeelanaya kulankii lagu soo afmeeri lahaa dagaalada u dhaxeeya labadaas dal qodobada kale oo aan ku soo qaadan doonaa barnaamijka daawadayaal waxaa ka mid noqonaya Soomaaliya oo si weyn looga dabaaldegay munaasabada kooda luuliyo oo ah maalintii xornimada ay qaateen gobolada koonfureed ee Soomaaliya qodobada kale oo aan ku soo qaadan doono daawadayaal waxaa ka mid noqonaya jabhadda ubaysan oo lagu magacaabo Onalifo oo iyagu si weyn uga soo horjeestay sariida lagu qodayo deegaanada maamulka Soomaalida ee Ethiopia qodobada kale daawadayaal aan ku soo qaadan doono waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha wadankaasi Mareykanka Donald Trump oo hambalyo u soo diray madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed munaasabada kooda luuliyo qodobada kale oo aan ku soo qaadan doono daawadayaal waxaa ka mid noqonaya barnaamijyo waaweyn oo gilgilay gobolka ka tirsan wadankaasi Mareykanka kuwaas oo looga soo horjeedo sharci uu soo saaray madaxweynaha wadankaasi Mareykanka Donald Trump qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa haddii Allah uu diro ka raadi noqdo ku soo dhawaada waatahay daawadayaal halka nagala socotaana waa xaqwar media barnaamijkeennii dhacdooyinkii ugu dambeeyay dunida dacaladeeda ayaa la socotaan qaybihii ugu horreeyay haddii markaanu aanu ku bilowno hambalyada iyo dabaaldegyada kooda luuliyo iyagu markaasi ka dhacaya guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya iyo sidoo kale gobollo ku yaala dalalka caalamka oo ay ka mid tahay dalkaasi Mareykanka haddii aan ku horeyno magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya waxaa ka dhacay tir iyo xalay iyo maanta munaasabado waaweyn kuwaas oo lagu maamuusayo ama lagu dabaaldegayo sanaguurada 58 ee ka soo wareegatay markii xorriyadda qaateen gobolada koonfureed ee Soomaaliya ayna midoobeen labada gobol waa koonfureed iyo kuwa waqooyiba 1960 maanta oo kale munaasabad weyn oo ka dhacday aqalka dawladda hoose ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin lagu casuumay iyagu markaas oo ka yimid dalka aynu walaalaha nahay Djibouti kuwaas oo iyagu markaas isugu jira wasiiro iyo mas'uuliyiin kale iyo sidoo kale koox dhalinyaro iyagu is abaabulay oo ka dhisan wadankaasi Djibouti oo iyagu sanad walba ka soo qayb gala ee munaasabadani subaxnimadii hore ee saakay ayaa waxa ay dadku isugu tageen Stadio Kunis halka loo yaqaan waqtiga degmada Cabdilcaziz ee gobolka Banaadir waxaana halkaasi ka dhacay munaasabad aad u ballaaran taas oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan waxaana halkaasi khudbad dheer ka jeediyay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu soo hadal qaaday ama hambalyo kadib uu soo hadal qaaday dagaalka dawladdu ay kula jirto kooxaha ka soo horjeeda oo ay ka mid tahay ayuu yiri madaxweynuhu shabaab ISIS iyo sidoo kale Daesh waxaana uu sheegay in ay adeegsanayaan ama khibradda adeegsanayaan kooxahaasi ay tahay ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si ay u kala geyn lahaayeen qabiilada ka jira Soomaaliya markaasna dawladda ay uga horkeeni lahaayeen ayuu yiri si kastaba haatee maanta oo kale 1960 kooda luuliyo ay ahayd markii Soomaaliya ay xornimada qaadatay waxaana Soomaaliya maanta hambalyo u soo diray madaxda caalamka waxaana ka mid ah madaxweynaha wadankaasi Mareykanka Donald Trump oo isagu warqad qoraal u soo diray madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana uu sheegay Mr. Trump in uu ugu hambalyeeyo maalinta xorriyadda Soomaaliya dawladda iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu hambalyeeyay dawladda wadankaasi Sacuudiga oo iyagu sheegay in ay hambalyo u dirayaan dadka iyo dalka Soomaaliya sidoo kale qaramada midoobay ayaa iyaguna markaasi baariyay warqaal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee magaalada Muqdisho ayaa markaasi loogu hambalyeeyay munaasabada kooda luuliyo oo ay dhaheen waxaanu u diraynaa hambalyo ku aadan kooda luuliyo dadka iyo sidoo kale dalka Soomaaliya وطيب داود هل كان رأس عتنا وحقور ميديا برنامج كنا قاعدين كل جنب يدري ذا عليه ذا هي الله صعوتان مكان إثيوبيا كواحدة أخبيسنا مركز اللجوم مجاعبه أنا عارف ويا مركز الكاسي كده على مركز إثيوبيا أيام مركز يقول رئيس واحد يسوق كل عبارين كنا هوري مادين سيريد عيرين كان مركز دولة إثيوبيا مركز كقديسه
halka lagu magacaabo amaba deegaanada maamulka Soomaalida ee Itoobiya. afayeenka kooxdaasi oo markaasi lagu magacaabo Cadaani Hirmooge oo isagu waraysi siiyay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay tahay arintaas mid aad iyo aad ay uga soo horjeedaan. waxaana sheegay markaasi Mr. Cadaani in arintaanu ay tahay boob lagu hayo xoolihii Soomaaliya. waxaana uu tilmaamay in arintan aysan markaasi iyagu aysan aqbali doonin si kastoo looga hortagayna ay doonayaan in ay ka hortagaan arintan. hase yeeshee ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya markaasi ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed ayaa sheegay in ay ka heli doonaan meeshan maalintiiba 450 fuusto sanadkiina markaasi ay doonayaan in ay iyagu markaasi ka faa'iideen 1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah marka ay dhamaatana waxa uu yiri oo aanu ka dhoofino magaalada Djibouti gaar ahaan dekada magaalada Djibouti jamhuuriyadda Djibouti waxaanu markaasi heli doonaa ayuu yiri ama bal qiyaasaya in ay helayaan 8 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Cadaani Hirmooge oo isagu markaasi afayeenka kooxda ONLF oo iyagu ka dagaalanta dalkaas Itoobiya ayaa markaasi iyagu waxa ay sheegeen in waxa ay u dagaalamayaan oo kaliya in ay tahay in aan lagu xadgudbin hantida shacabka Soomaaliyeed. waxaana ay sheegeen in ay iyagu difaacayaan dadka iyo sidoo kale dalka Soomaaliya. waxaana ay markaasi sheegeen in iyagu markaasi ay taagan yihiin ayay dhaheen oo aanu taaganahay booskii iyagu ay taagnaayeen Axmed Gurey iyo sidoo kale Sayid Cabdulla Xasan. maamulka Soomaalida Itoobiya oo hogaamiyo Cabdi Maxamed Cumarna waxa ay ku eedeeyeen amaba ay dhaheen waa mid kamid ah ayay dhaheen dhaqamada looga dhaqmo dalkaasi Itoobiya. hase yeeshee deegaanada maamulka Soomaalida Itoobiya ayaa dawladdaasi Itoobiya waxa ay markaasi ka hirgelisay markii ugu horeysay ceelal markaasi laga soo saarayo saliidda ciirinka ah oo halkaasi ku jirta. waxaana bariyihii ugu dambeysay si weyn ay Soomaalida u hadalhaysay arintaasi. daawadayaalka weli nagala socotaana waxa ugu warramiyay barnaamijkii dhacdooyinkii ugu dambeeyay dunida dacalada ee la socotaan qodobo dhowr ayaa noo soo socda. hase yeeshee markaa madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Donald Trump ayaa markaasi waxa isagu u wajahayaa xaalad markaasi aan deganaansho aan ahayn kadib markii uu kala geeyay ayaa la yiri ilmo yar iyo sidoo kale waalidkooda. maalnimadii Sabtida ahayd ee shalay ayaa waxa gobollo ka tirsan waddankaasi Mareykanka ka qarxay banaanbaxyo aad u xoogan kuwaas oo gelgelay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala waddankaasi Mareykanka. waxaana la sheegay banaanbaxan in markaasi ama qayb weyn ka qaatay urur haween ay ku midoobeen oo ka dhisna waddankaasi Mareykanka kaas oo si weyn ayaa la yiri uga soo horjeeda kala-geynta carruurta iyo sidoo kale waalidkooda. dadkan ay isugu soo baxay magaalooyinkaas ayaa waxa ay ku qaylinayeen erayo ka dhan ah arinta ka taagan waddankaasi Mareykanka oo ay ugu yeereen kala irdhaynta ama kala cayrinta ilmaha iyo waalidkooda. 17 gobol oo ka tirsan waddankaasi Mareykanka oo gobolada markaasi federaalka ah ayaa waxa sidoo kale ay maxkamad ka gudbiyeen madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Donald Trump. goboladan ayaana waxa markaasi ay sheegayaan in ay ka soo horjeedaan in sawirka Mareykanka caalamka la xumeeyo kadib markii la sheegay ayaa la yiri la kala geeyay carruurta iyo hooyadooda kuwaas iyagu markaasi ku kala go'doonsan ayaa la yiri xuduudka u dhaxeeya waddankaasi Mareykanka iyo sidoo kale Mexico gaar ahaan gobolka Texas ee waddankaasi Mareykanka. ilmaha carruurta oo yaryarka ayaa la sheegay in hooy loo sameeyay. waxaana la sheegay xilliga habeenkii ah in ayba argagax xoogan la kulmeen iyo cabsi aad u fara badan kadib markii la yiri askarinta u soo daadatay ay kala jajubeen iyaga ilmihii iyo waalidkooda. waxaana la sheegay waalidkii in qaarkood la geliyay xabsi oo haatan ay ku jiraan. arintaas ayaana waxa ka carooday dad aad u fara badan kuwaas oo ku dhaqan waddankaasi Mareykanka. caqabada koowaad oo wajahayo Donald Trump ayaana ah arintan. waa tahay daawadayaalka nagala socotaan waxa ugu warramiyay barnaamijkii dhacdooyinkii ugu dambeeyay dunida dacalada ayaa la socotaan qaybihii ugu dambeeyay haddii aynu eegno dalkaasi Itoobiya ama wada hadallada markaasi u dhaxeeya dawladdaasi waddankaasi Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxweynaha waddankaasi Eritrea ninka lagu magacaabo
السيسي أفوقي أيا دوان مركزي لفيليا إن أي ودا كلمان لبداسي مسؤول سيدا مركزي أي با حقيقية ورباهين تبدها دالكاسي إثيوبيا وزير كاريمها ديبدا ودن كاسي إثيوبيا وكلي قبينك لغو مغعابو أيا شيغي إن أي دوان كل مدونان مدحوينها ودن كاسي إلتريا يسيدو كله رئيس الوزراء ودن كاسي إثيوبيا وأبي أحمد يسيدو كله السيسي أفوقي سلو قد بأيو يري وده هذا الهير لبعض وأيشان لبدا مسؤول لما سشاعين وقتك الرسمي أي كل مدونان لبدا مسؤول وحاسين لبدا دلكم مغضى بالسيل حوغن كاس أو مركاسي كو آدن دردرقرينتا دالة النبضات الجيريا إيو إن لسوء عليو حريركي لبدا دل رئيس الوزراء هذا الكاسي إثيوبيا أبي أحمد أيا شيغي إن دلكيسو ديار وياهي إن بقع عصب أو أفره labada dal waxaana dalkaasi markaasi uu ku tilmaamay in ay yihiin dal walaalahooda walaal la xaqiijin halka rasmiga oo ay ku kulmi doonaan labadan mas'uul ayaa hadana waxa la leeyahay waxa ay ku kulmi doonaan dalka saddexaad ama waxay ku kulmi doonaan ayaa la yiri Eritrea ama Ethiopia waa sida la saadaalinayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed ayaa tan iyo markii xilkan loo magacaabay waxa uu dalkaasi Ethiopia u furay bog cusub oo markaasi aan lagu aqoon jirin مسؤولية هراء وصمري دالكاتي إثيوبيا يمركاسي دالكان إلتريا لغو مقعبو أيا وحا كدحيي دقالا علص وحوقان كواس أياغو مركاسي لباتان سنة جرسيدي كواس أياغو مركاسي صوب بلوضي كوين سغال بقول سغال شني سيديد دي دقال علص أو دحيا لبا دال أيا قرحي ولو سيد دقال كان لصواف مرين لبادي يكون إنكستو أي مركاسي كبيا دي دولة ودكاسي إثيوبيا قوان كسب حي البيس دولة قيبها لان كان نقل سعوتان وحقر رميدي برنامج كده عدد كده ميدن الدعلة يعني انت كسي أفميريا برنامج كان كيس الحقا انت ديبه وكل مدونه نقد قليل